arlada hadii lagu aamino ummadda uu sameeyo adeega laga dhigo hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sameeyo adeega laga dhigo ويلقناهي إنه تضوي سنة بد يمدك بدنبا كفشلي إسكدا وحقبت كدر خلوق قبلها إسكدا هرباني تدر كرجالي هذا تعين تاي هذا هربان تاي هذا بدفية تاي هذا بدقورة تاي هذا من ودوي تاي هذا من عدالة تاي هذا من دعمشتر تاي نكمل تدخل الحرية كيبرية عدارة كيبرية يعني نورسو السكولة تعين تلوق تلقاي أي تاي وحدة لدسارة أي تاي طريق قرقة وما تلقاي ويراني بدل الزود جاي كيبرسكي بدل الزود جاي الدرك مقع يشرف كدوري إن ما أنت لورد أوفي إن عدارة لقيتشو لورد أوفي إن دكتور عدارة لقيتشو سيدي محسكي عدارة لقيتشو أنت روح أقوى أياله maxay hayday wan wareejinayna ma ha wareejis ee waa qaadasho iyo boob cadaana dawladda Siilaanyo hadii lagu dhafto 24 milyan shantii sanadood ee ay joogtay ay iyadoo gacanta ku haysay Haamaha oo aanay wax maxay hayday dayactir oo sameeyeen in ka badan 100 milyan oo dollar bay dhacday oo ay gacanta ku qaadatay tay u baahanahay inaan ka daba tagno waxa weeyaan 100 milyan ee dollar ay dalka ka dhaceen ما هامها الوريجينية هامها مرة كوكلان مينو إني وريجيا الشعب كنا كوكل هذا معها وحنا ما أنت كهذلينا وأرهن قرنوية ما هارن قبل كساحل كوكوان ده كده بربرة سو أمد السومال لأن أردنا لقما قوتيه سو أسكرت لقما بحي مشاهر كود كسيل عشوجا كإلا بري كنتي شوجا سو كم عيشوا هامها أساس اللوجي عيش له هدي أي دولة دني أنا شايف كوش من هاي سيدا la sheegay waad cali yunus ka dhawaajiyay waxa weeyaan haamuhu waa qayb talabaad ee ugu inkamka badan ee Soomaaliland ay xooga soo baxaan shacabka Soomaaliland oo dhan baa wada leh reer saaxil gaar uma laha maanta Soomaaliland oo difaacada laga doonay in difaacado ayaa laga doonay waxaan maqlaayay nimo yiraahda dad ganacsadayaal oo Soomaaliland u dhashay oo muwaadiniina ayaa maal gashanaya maxay maal gashanayaan ما هنتيجة تذكر نحيا نزل مالك شنيا تاسوا بومي أو البرنامج هذا المالك شو هاما قسم يسوع بعد كوديده تنوع بوب ويعدويه سيلاي ينتكو حيرنا ويبوبي ينتلك شعب الصومال لأنه حلقة الدنيا إن في شيء نادان يان الله يسكتري يان قبيل لوكلا إحنا يان الله لين رير هبل رير قد صح ayaa reer galool u diidan wax ee xloo diidan meesh ma jirto niman doonaya dalka dhacaan oo burcad ayaa doonaya in ummadda isku dhuftaan oo dadka uu kala sheekeeya arrinkan waa arrin muhiim weeyaan waa arrin qarannimadeena ku suntan weeyaan maanta haddii taa ka yeelo wallahi Soomaaliland meel fog baa laga doonaya wax u dul qaadan karayna maaha